Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka kadib kulan uu la qaatay gudiyada doorashada ayaa soo hadal qaaday dooda wali ka taagan kuraasta Somaliland. Ugu horeyn Rooble ayaa fariin u diray labada garab ee is haya gaar ahaan Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi isagoona ka codsaday in ay ka shaqeeyaan horumarinta iyo is-aaminaadda doorashada si ay markaa doorashada aqalka sare ee Somaliland ugu dhacdo si cadaalad ah. Rooble ayaa tilmaamay in habraaci u dambeeyay uu dhigayo ee la soo saaray markaa uu dhigayo in labadan mas'uul ay soo xulayaan liiska musharaxiinta xildhibaanada ka imanaya gobolada waqooyi isaguna uu ka hubin doono isla markaana turxaan bixin loogu sameyn doono. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inuu diyaar u yahay inuu si gaar ah ula shaqeeyo labada dhinac si looga gudbo caqabadaha wali jira ee ku aadan kuraasta gobolada waqooyi ama si kale aanu yiraahdee Somaliland. Dhinaca kale waxa uu Ra'iisul Wasaaruhu intaasi ku sii daray in aanu ogolaan doonin in labada garab ay isku dulmiyaan doorashada ayna sidoo kale jiri doonin u kala eexasho labada dhinac. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo markaa khilaafka u dhaxeeya labada garab ee kuraasta Somaliland isku haya uu meeshii ugu sareysay gaaray kaas oo saameyn markaa hore u socodka amaba guud ahaanba saameeyay hore u socodka doorashooyinka. waxaase haatan soo farageliyay golaha wada tashiga qaran ee markaa soo saaray habraaca doorashooyinka iyo sida loo wajahayo kuraasta gobolada waqooyi. Si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo maray marxalado kala duwan iyo isjiijid dheer kaas oo dib u dhigay qabashada doorashooyinka oo ka daahay waqtigii horey loogu asteeyay.